السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا هنكهضلينا علامات كمذا ما أستان كمذا أستامها وكوكور ربع قف كنارسيستا مركز إن بدل نوريد قف كاسو حنقون كنا قف والد كأه يقف أما قف رال كأه أما قف حاس كأه منين كأه سيدا إن بدل أرجنا قف نارسيستا هذا الله نوريد مدة بدل waxaa dhacda in caafimaadkaaga maanka ah tayadiis uu hoos u dhaco khaasatan qofka narcissista ah haduu yahay qof waalidkuugu aadan ama qof markii aad soo koraysay oo yaraantaadii kaalin ku lahaa koriinshahaaga hadii uu narcissista yahay ama qof aad toxic ah oo xun oo sumaysan uu yahay inay saameyn ku sameynayso caafimaadkaaga maaneed iyo xaalad dareemeedkaaga markii aad weynaatid taas khubaro isku raacday sidoo kale khubarada laakiin waxay soo ogaadeen in hadii aad la nooshahay ama muddo dheer ay wax iskaga kala jireen adiga iyo qof narcissista ah in tayada ama qiimaha caafimaadkaaga maanka iyo heerkaaga dareenka ay wax badan iska bedelayaan insha Allah taala marka videoga maanta waxaan ku soo qaadanaynaa astaan kamid ah ama astaamaha ay kugu reebaan ama aad ka dhaxashid la noolaanshaha ama la dhaqanka qofka narcissista ah oo xun astaamaha maba u maleynayaan inay jiraan astaamo fiican ama waxyaabo fiican oo laga dhaxlo noolaansho iyo la dhaqan qof narcissista maanta waxaan video ku soo qaadanaynaa insha Allah taala ilowshaha waxa laga yaabaa inaad isku aragtid ilowsha aad u fara badan in aad ilowdid meesha wax dhigtay ballamahaaga ilowdid biil aad bixinayda ilowdid sida parking ticket sida faatuurada ganaaxa baabuurka fawaatiirta korontooyinka iyo waxyaabo lamid ah in aad kala ilowdid ballan dhaqtareed inaad ilowdid qof saaxiibad la ballansan inaad ilowdid meeshii aad wax dhigtay inaad ilowdid hawl aad qaban lahayd inaad ilowdid ilowshahaagu wuxuu noqonayaa non stop taasna waxa ugu wacan waayo energy-gaaga iyo tabartaada iyo waqtigaaga waxaad ku isticmaalaysaa sidaad ama qofkan iskaga difaaci lahayd ama aad u qancin lahayd ama aad isku dayi lahayd inaad u fahantid waxa ay sameynayaan waxay ka wadaan ama waxay ula dan leeyihiin saad u fahantid waxyaabay ku dhaqaymayaan dhaqankooda saad u fahantid baad energy badan ku bixinaysaa saas awgeed waqti badan maskaxdaada capacity badan ma u haynayso in ay waxyaabihii kale laga rabay xusuusato maskaxdaana si kastay u tahay amazing waxyaabaha ugu subxaan Allah ugu cajiibsan oo ilaahay na siiyay oo nagaga fadilay noolayaasha kale hase yeeshee hadii aan maskaxda la ilaalinin waa wax very fragile ah qofka la nool qaar qof narcissista ah maskaxdiisa 24 hours cadaadin badan ayaa ku socota oo kaga imanaysa dhinacyo kala duwan oo badan mana uu haynayo waqti uu ku kala xusuusto wax xusuusta khaasatan oo short term memories waxa la dhaho xusuusta gaaban waxay u baahan tahay inaasan video hore kaga hadalnayba in ay maskaxdii joogto aysan ku mashquulsanayn in waxyaabo kale maskaxda waxa u muhiimsan inay isdifaacdo inay is ilaaliso inay to make sense out of situation si ay nabadgelyadeeda u sugto soo maaha marka qofkii hadduu maantana maskaxdiisa ay ku mashquulsan tahay qofkan muhiimka u ah noloshiisa ku jira inay fahmaan waxa uu leeyahay wuxuu damacsan yahay inuu qanciyo inuu isdifaaco inuu dignitygiisa iyo positionkiisana mowqifku taagan yahay uu ka doodo maanta dhan haduu waxaas maskaxdiisa ku bixinayo oo uu maanta dhanba uu excuses raadinayo marmarsiinyo u raadinayo maanta dhan markaa ma u helayo capacity maskaxdiisa inay ka fakirto waxyaabihii laga rabay oo noloshiisa immediate ku ahaa oo hadda taagnaa waqti ma u helayo marka hadii ay ilowshahaaga badan yahay oo qof narcissista oo noloshaada ku jiro macnaheedu ma aha in aad xanuunsan tahay ama dementia kugu dhacay ama alzheimer kugu dhacay ama cuduradaas kale oo ilowshaha uu kugu dhacay waxay xusuusnaataa inay tahay xaalad aad ka dhaxashay 99% ay ugu wacan tahay inaad ka dhaxashay qofka narcissista ah qofka narcissista oo noloshaada walaalka ama hooyada ama aabaha ama dariskaaga ama booskaaga ama lamaanahaaga khaasatan dadka aadka kugu dhow aadan ka baxsan karin marnaba ama dantu kugu kaliftay oo qutulyoonkaaga ku xiran yahay amaba ay ku xiran tahay ad bond intaad yeelateen aysan fududayn inaad ka foqdid amaba aad ku investigate maal gashatay amaba ilaahay uu wax kugu daray oo ka sameeyay ka beeray maalintu ilaahay ku suurtageliyo inaad qofkaas ka fogaatid maalintaas waxaad ogaan doontaa in ay suurtagal tahay in xasuustaada ay dib u soo noqoto xusuusnoona in aadan kaliya ahayn fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu